كل ونكسن داوديال halkani waa Goobjoog TV waxaad ku soo dhawaataan warka oo idin akhriyo anigoo ah Weys Xasan Maxamed qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa jaaliyada dalka Uganda kulan uu kula qaatay Kampala wuxuu ugu baaqay inay ka qayb qaataan horumarka dalka Soomaaliya dagaalyahanada ka tirsan Al-Shabaab ayaa sarkaal ku toogtay Mandera saddex qof oo kale oo rayidana sidaas oo kala dilay shir looga hadlaya arrimaha qaxootiga ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Kampala oo madaxda dawladaha gobolka ay ka qayb galeen beesha caalamkana loogu baaqay inay ka qayb qaataan sidii loogu gurman lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen heshiis ayaa laga gaaray colaad beeleed ka taagnayd gobolka Hiiraan akhbaraadka dibadda daawadayaal waxaan idin hayaa dawladaha ka dalbaday Qatar in ay xiriir la leedahay ama ay taageerto argagixisada ayaa waxay dalbadeen in la xiro janalka Al Jazeera xiriirka u jirta Iran iyo in albaabada la isugu dhufto saldhig military oo Turkiga uu ku leeyahay Doha qodobadaas iyo wararka ciyaaraha ayaad ku daawan doontaan warka galabnimo انت صداوتين وقضبضي ugu waaweynaa warka Goobjoog TV imankana daawadayaal u diyaar garooba isagii oo dhan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wafdi hogaaminayo ayaa magaalada Kampala ee caasimadda wadanka Uganda waxa ay kula kulmeen jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi madaxweynaha oo jaaliyada uga warbixiyay isbeddelka dalka iyo xaaladda sida ay tahay kadib ayuu ka dalbaday inay ka qayb qaataan horumarka dalka iminka uu ku tilaabsanayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magaalada Kampala kula kulmay jaaliyada Soomaaliyeed ee wadanka Uganda kulankan ballaaran waxa looga gol lahaa in jaaliyada Soomaaliyeed ay la wadaagaan xogaha ay hayaan fursadaha iyo haystaan iyo caqabadaha hortaagan madaxweynaha ayaa jaaliyada uga warbixiyay xaaladda guud ee dalku ku sugan yahay wuxuuna kula dardaarmay jaaliyada inay ka qayb qaadato dib u dhiska dalka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tilmaamay in dawladda ay ku shaqeynayso rabitaanka shacabka isla markaana jaaliyada looga baahan yahay inay door muuqato ka yeeshaan dib u dhiska dalkooda survey ama daraasad oo cod qaadis ah waxa loo codeeyay Soomaali waxay hore u oran jirtay gaajo gobonimo leh iyo waxa loo codeeyay dhereg gunnimo leh boqolkiiba boqol waxay u codeeyeen tan hore gaajo gobonimo leh macnaheedu waxay tahay qofka Soomaaliga wax walba waxa uga horeeya sharafta taas waa dadkii hore dadka hadda maanta joogay maxaa u yaala marka waa xaqiiqa annaga visionkeena dawladnimo waxay tahay sharafkii Soomaaliyeed inaan soo celino maxaa yeelay dawladdu waa muraayadiina way asku fiirinaysaan sida ay u egtihiin iyo ka turjumaysaa dawladda waxaan aaminsanahay wali dadkii fiicnaa oo aaminsanaa inay gobonimada ka doortaan ee maxaan ku raahdaa gunnimo ka doortaan wali waa joogaan waa idinka waa soo taaganna qayb ahaan wixii naga burburay oo dawladnimada ahayd way inaan ka bilaawno marka maxaa yeelay Soomaali waxa lagu daydaa waalidka lagu daydaa haddii dawlad aan nahayna dawladda lagu daydaa marka hadba dawladda sida u eg tahay ee shacabku ekaanaysa marka oo ekaanayaan marka waxaan ugu ballana annagoo magaciina mathalayna inaan sharafkii iyo qabkii Soomaalnimo aan soo celino intii rabtaan ugu qaadato dawladnimadiinu qiimo yeelanaysa sharafkii Soomaaliya waa soo noqonaya laakiin waxa naga qasay nabadgelyadeennii iyo ammaankeeni iyo noloshii aan adduunka kala kula tartami lahayn waa intaas dhalinyarada ah oo runtii fakar khaldan haysata saad ogtihiina waxaan u fiidanaa cafis macnaheedu ma aha anagu naftigeena inaan rabno inaan leyno maxaa yeelay wiilasheenii weeye waxaan u fiidanaa cafis inay noo yimaadaan oo ay ka qayb galaan horumarka iyo dhismaha dalka waana sugaynaa inkastoo ay soo bilaabanayaan hadda inay soo dhiibaan walaalayaal marka amniga Soomaaliya sugitaankiisu Soomaaliya kaliya ha ku haleynna idinku naftigiina mas'uuliyadda ka saaran maxaa yeelay waxaad sugaysaan inay Soomaaliya degto aad ku soo noqotaan marka si kasta dalkan
aad amnigiisa aad qayb uga qaadan kartaan si kasta annagu aad qayb noogala qaadan kartaan amniga Soomaaliya waa wax loo baahan yahay maxaa yeelay waxay soo dhaweynaysaa xasiloonida iyo ammaanka Soomaaliya soo dhaweynaysaa beesha caalamku waxa hadda ka go'an inay gacan siiso waxayna gacan noogu siinaysaa sida annaga aan ula dhaqanno iyo sida aan ula imaanno waxay hadda naga aragtaa shacab iyo dawlad iswata oo isku duuban dhalinyaradu haddaad doonaysaan leadershipka Soomaaliya iyo mustaqbal fiican in Soomaaliya ay hesho fadhigan aad ka kacdaan oo aad qayb ka soo noqotaan dawladnimadan hadda socota hadday noqoto dhiigna u daadisaan maxaa yeelay kuwa hadda dibadaha ka imaanaya oo shisheeyaha ah oo shabaabka ku jira waa dhalinyaro idinkoo kale ah oo laakiin naftooda waxay u hurayaan idinka iyo walaalihiin iyo kuwa Soomaaliya jooga in nolol u diidaan idinkana hadda toosh lidinku hayo oo la yiraahdo kan ma terrorista mise ma aha adoo shaqaysanayo horjeeda wax kale ma maxaa yeelay dhalinyaradii ka hortagi lahayd yaa fadhida oo sugaysa inuu qof Ilaahay cirku uga soo diro oo u kalin gareeyo dhulkii dhanka kale shirkii looga hadlayay arrimaha qaxootiga ka socda dalka Uganda ayaa la filayaa maanta in la soo gabagabeeyo waxaana laga soo saari doonaa warmartiyeed ku saabsan go'aamada ka soo baxay shirkaasi shirkan waxaa ka qayb galay wufuud horkacaya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gudoomiyaha hay'adda qaxootiga barakacayaasha dowladda Soomaaliya Axmed Daahir Cabdikariin oo wafdiga hogaaminaya madaxweynaha ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in shirkaasi ahmiyad gaar ah u leeyahay Soomaaliya dhanka kale magaalada Kampala ee caasimadda waddanka Uganda ayaa lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay arrimaha qaxootiga gobolka oo Kenya waa Uganda ay martigelinayso qaxootiga ugu badan qaaradda Afrika shirka waxaa lagu soo hadal qaaday sidii loogu gurman lahaa qaxootigaas oo beesha caalamka ay gacan uga geysan lahaayeen sidii u heli lahaayeen raashin dawo iyo waliba deegaan madaxweynaha Soomaaliya iyo madax kale oo dowladaha gobolka ah ayaa ka qayb galay waxa sidoo kale si wadajir u shir gudoominayay xogayaha jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa iyo madaxweyne Yoweri Museveni oo labaduba daadaheynaya shirkaasi ugu dambeyntiina loogu baaqay beesha caalamka inay ka qayb qaataan sidii gurmad loogu heli lahaa qaxootigan shirkan waxaa ka qayb galaya madaxda qaar ee wadamada Afrika oo Soomaaliya ay ka mid tahay iyo hay'adaha u dhaqdhaqaaqda xuquuqda qaxootiga Uganda waxa ay martigelinaysaa qaxootiga ugu badan ee qaaradda Afrika kaas oo gaaraya in ka badan 1 milyan oo qof oo qaxooti ah so this conference really is a solidarity conference to help Uganda really cope with this danjiraha joogtada ah ee qaramada midoobay u fadhiya Uganda ayaa sheegay in shirkan uu yahay mid lagu barbar istaagayo oo waliba taageero loogu muujinayo qaxootiga gobolka waxa uu tilmaamay in Uganda ay soo qaban qaabisay shirkan ujeedkiisu yahay in la barbar istaago qaxootiga ku nool wadamada Afrika gaar ahaan Uganda midowga Yurub ayaa ku dhawaaqay deeq lacageed oo gaaraya 65 milyan oo pound oo loogu talagalay in wax looga qabto xaaladaha baahiyaha gaarka ah sida cunnada waxbarashada caafimaadka iyo in biyo loo helo dadka qaxootiga ah qaxootiga ugu badan ee ku jira xeryaha qaxootiga Uganda ayaa kuwa ka soo cararay dagaalada ka soconaya dalka Koonfurta Suudaan wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka Gabriel oo ka hadlay shirkan ayaa sheegay in qaxootiga Uganda ay wajahayaan xaalad adag taas oo qasbaysa buu yiri in la dedejiyo taageerada ay u baahan yihiin dadkan in ka badan 1 milyan oo qaxooti ah ayaa ku nool dalalka Uganda oo ay ka soo kaceen dalalka dariska la ah Uganda sida Koonfurta Suudaan Ethiopia Kongo Dimuqraadi iyo kuwa kale oo Soomaaliya ay ka mid tahay Uganda ayaa lagu sheegay in ay tahay dalka afraad ee martigeliya qaxootiga ugu badan adduunka waana dalka koobaad ee qaaradda Afrika ay ku sugan yihiin qaxooti si qasab ah dalalkooda uga soo barakacay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ka mid ah madaxda lagu casuumay shirkan Maxamed Alxaaji Goobjoog TV Muqdisho dhanka kale madaxweynaha dowladda martigelisay shirkan barbar istaaga loogu muujinayo qaxootiga Yoweri Museveni ayaa arrimaha siyaasadda Soomaaliya mar uu ka hadlayay waxa uu sheegay in madaxda Soomaalida looga baahan yahay inay ka faa'iideystaan heelanaanta midowga Afrika iyo waliba beesha caalamka Yoweri Museveni dhanka kale waxa uu sheegay in amniga iyo deganaanshaha Soomaaliya ay ku xiran tahay in isku aragti laga noqdo siyaasadda qaranka Soomaaliya waxa uu tilmaamay in muhiim ay tahay in laga guuleysto fikirka diiniga qaldan ee kooxaha uu ku tilmaamay argagixisada ay wadaan loona baahan yahay in axzaab wadani ah iyo iskaashi wada jira madaxda dowladda Soomaaliya ay la yimaadaan
wuxuu xaqiijiyey oo mar kale ku celiyey in dowladdiisa ay sii wadi doonto taageerada ay siinayso Soomaaliya. Uganda waxaa ka jooga Soomaaliya waxaa ka jooga ciidamada ugu badan ee midowga Afrika kuna howlgala magaca AMISOM. rag la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ayaa 4 qofood oo ku jira sarkaal baliis ah waxay ku toogteen degmada Elwaaq ee Bandera. kooxahaasi ayaa la tilmaamay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab. bartamaha bangi ku yaala magaalada Elwaaq ayuuna weerarkaasi ka dhacay. ruux goobjooga ah ayaa sheegay in raggan ay toogasho ku dileen sarkaalka iyo 3 qofood bartamaha magaaladaasi. weerarada noocaan ah ayaa waxay ku soo badanayeen waayadii dambe deegaanada dhacadka u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Laanqeyrta cas ee Kenya iyana waxa ay sheegtay in 2 qofood ay ka badbaadeen isku day dil oo la doonayay in lagu qaarijiyo kadib markii bam loogu xiray gaarigii ay sarnaayeen. maamulada Ahlusunna wal Jamaaca iyo Hirshabeelle ayaa is-afgarad ka gaaray colaad beeleed ka taagneed deegaanka Baanyaaley ee hoostaga gobolka Hiiraan. heshiiskani ayaa waxa u matalaya maamulka Ahlusunna wal Jamaaca madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Cali Baashi Faarax, halka Hirshabeellena uu u saxiixay wasiirka dib u heshiisiinta Yuusuf Axmed Xagar Dabageed. heshiiskani ay gaareen labada maamul ayaa waxaa ka mid ahaa qodobo ka soo baxay is-afgarad oo weliba ay sal u tahay in la kala qaado maleeshiya beeladkii dagaalamay gaar ahaan deegaanka Baanyaaley ku dagaalamay oo ka tirsan gobolka Hiiraan. waxaa sidoo kale la dalbaday in gogol nabadeed la isugu yimaado 10 bisha soo socota. deegaankani Baanyaaley hoostaga gobolka Hiiraan ayaa maalmihii dambe waxaa ka taagneed colaad u dhaxaysa beelo oo maleeshiya beelad ka soo kala jeeda gobolada Hiiraan iyo Galgaduud kuwaas isku hayay dhul daaqsimeed ballaaran oo ku yaala deegaanka. wali waxaad daawanaysaan warka Goobjoog TV oo idinkaga imaanaya xarunta dhexe ee telefishinka uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. maamulka Jubbaland waxa ay sheegeen in ay sii wadayaan qorshayaasha dagaal ay ka dhanka ah dagaalyahanada Al-Shabaab. waliba maamulku waxa uu sheegay in ay ka saarayaan deegaanada jubbooyinka oo jubbada dhexe ay ka mid tahay ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin. sidaasi waxa warbaahinta uu sheegay gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Gooni oo sheegay in qorshahaasi uu marayo meel wanaagsan. anagu qasad gaara iyo ujeedo gaara kama lihin gobolada maqan iyo degmooyinka maqan ee Jubbaland. qasadka iyo ujeedka anagu waxa weeyaan inaan xoreyno. xilliga la xoreynayana waa xilli u gaara ciidamada ku shaqale. dadku inay dhibaataysan yihiin, inay sicsan yihiin, inay rafaadsan yihiin cid walba way ogtahay. annaguna waa ognahay, adduunkuna waa ogyahay, Soomaaliya dhanna way ogtahay meel kastoo shabaab ku joogo. sidaan uga qaadi lahayn baa annagu qorshaheedii wadnaa una xoreyn lahayn. ulana mid noqon lahaayeen nolosha ay haystaan kuwan xorta ah Kismaayo kala joogay, Afmadow joogay, Dhoble joogay, Badhaadhe ma wada haystaan. Badhaadhe boqolkii 10 bay haystaan. district xaruntii bay haystaan Badhaadhe. xeebahana waa xor, berriguna waa xor boqolkii 8 district Badhaadhe. laakiin degmadii bay haystaan, xaruntii degmada haystaan. marka boqolkiiba 10 wey. marka Badhaadhe district oo degmadii ah xarunteedii iyo Xagar iyo Jamaame iyo Bu'aale iyo meelaha kale ka sii Jubbaland inay xoroobaan waan ku khasbanaa. in ay ummadooda wax la qaybsadaan waan ku khasbanaa. Afmadow iyo Kismaayo iyo markii xaqiiqan loo hadlo inaan cirka marno mooyaan dhulka ma mari karno. meeshaan oo joognana waa Kismaayo wey. maamulka dhan dowladda Jubbaland Kismaayo jooga. marka gobolka iska daayay Jubbaland dhan buu u bilaamayaa shaqadeeda bilaamaysa. beerihii iyo wabiyadii iyo haddii la kusoo horumarkiina meelaha hadda maqan bay ugu badan yihiin beerihii laga soo saari jiray. dhanka kale maraan wax ka weydiiyey tan iyo intii uu xafiiska uu joogay waxyaabihii uu qabsoomay ayaa waxay ugu jawaabay sida tan. meel ziiraan ka bilownay, wax ziira ka hooseeyaan ka bilownay. Cabdirashiid Cali Gooni ayuu ahaa gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose oo ka warbixinaya qorshayaasha ka dhanka Al-Shabaab ee la doonayo in looga saaro deegaanada jubbooyinka
ay kaga sugan yihiin goboladaasi weli waxaad daawanaysaan warka waxaa inoo soo socda oo daawan doontaan. A spanyol államügyész elfogadja, hogy Leo Messi az adócsalás miatt kiszabott felfüggesztett börtönbüntetését pénzbírság. gabagabo fiican ayay kusoo dhammaatay dacwadii ka dhanka ahayd ciyaaryahanka Messi iyo weliba aabihii dalka Spain kadib markii ay kusoo baxeen eedeymo ahaa in lacagihii canshuurta ay la baxsadeen taageerayaasha ciyaaryahankaasi. war fiican ayaan u hayaa ila jooga hayeshe markan waxaa bisha barakaysan ee Ramadaan ay la gaar tahay fadaa'il dheeri ah oo islaamku uu aad ugu booriyay dadka muslimiinta ah. waxaa ka mid ah waxyaabahaasi diintu ay dhiirigelinayso in la afuriyo qof muslim ah inta bishaasi lagu jirana la ballaariyo camalfalka khayriga ah. dhalinyaro isu tagtay oo si iskood ah isu abaabushay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay fuliyeen bishan mashruuc ay ugu magac dareen afar ku gaar ka oo u sameynayaan dadka gobolka uu kaga dhaco wadooyinka amaba meheradaha ganacsiga oo ay siirayaan afar ay ku gaari karayaan guryahooda. dhalinyaradan ayaa afuriya dadka wakhtiga afurku kaga dhaco wadooyinka ama meheradaha ee ka gaari waaya wakhtiga afurka. waxa kale oo taas dheer inay sidoo kale afurka gaarsiiyaan dadka taagta daran ee ku sugan dariiqa hareerihiisa. haddaba dhalinyartan ayaa ah kuwa iskood isku xilqaamay iyaga oo dhaqaalaha afurintan ka ururiya dhexdooda. Mustaf waa madaxa dhalinyarada waxa uu sharaxayaa inay hawshan bilaabaan markii la gaaro bisha Ramadaan wuxuuna intaas ku daray inay wadeen hawshan muddo 2 sano ah. mashruucan awjeediin waxaan bilaabnay soonkii hore waxa u talagalnay dadka isgoosida taagan qofka bi'alka raacay oo guri iska gaari karin qofkii miskiinka ah wadada taagan ninka baabuurkiisa intuu xoog u wada lahaa oo shil gal lahaa afurkiisa inaan sii siino oo waliba xilliga maqribka salaada maqribka aan ku aadaamnay aan u talagalnay afurku gaar mashruucan waa sida u dheehin kartaa mashruuc oo wadankan caalam afriqi oo ku cusub waxaan ka soo dheehanay wadamada carabta ah wadamada carabta waxay leeyihiin dhaqamo fiican oo ku saleysan ahadiis nabi sallallahu alayhi wasallam iyo diinta islaamka marka waxaan dhihi karnaa waxaan ka soo xiganay ama ka soo rarnay wadamada carabta ayaa noocan qabaan in sufrooyin wadooyinka sameeyaan qofka wadada maraya afurka ku sii gaar inay sameeyaan tasbiir saami oo u magac daraan sidaas daraaddeed aan mashruucan aan noo soo maahatay magaalada Muqdisho aan ka sameynay waxaan sameynay iclaanaad boorisa sameynay qofkii walaalkaada ku afuri $1 dhexdeena dhalinyarada ayaa qaraasiya u jeedin dhexdooda wixii iska qaateen tabarucaad iska aruriyaan ama mashruucan ku fulinaa maalin kasta waxaan sameynaa ilaa iyo 600 oo wajba maanta saa u jeedin waan balaarinay ilaa waxaan geenay 1000 wajba ilaa 1000 qofood inaan afurno. Mustaf sidoo kale waxa uu sharaxayaa ujeedada ka dambaysa mashruucan afurku gaadh. mujtamaca Soomaaliya inaan ka gudbino ifa fiican inaan ka gudbino suurad fiican waxaad badatay dilka batay dhalinyarada Soomaaliya waxa badatay waxa way isqarxiyaan dhalinyarada Soomaaliya waxa badatay waa mashquulsan yihiin ciyaarku mashquulsan yihiin waxaan rabnaa in caalamku u cadeeno in ay jiraan dhalinyaro noocan oo kale ah dadkooda ka fakiraayo bilicda magaalada soo celin doona. qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa waxa ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay taakulayaan dadkooda ayna tusaale u noqdaan dhalinyarada kale si ay dadku isku tiirsanaadaan. marka maqlay inuu dhalinyaro isku tagtay sameynayso afar ku gaar wax la dhaho ama tasbiir faa'im af carabi oo naqaano aad ugu farxay waan ka qayb qaatay hadda taqriiban waxa ku jira meesha hal sano camal meesha ku jira hadda aniga waxaan aad u fiican laana waxyaalo khayr adduunyo aakhiraba khayr oo sameynaysa muslimkana qof waxa siinaysa afar qof afar wax ku cun la ama qof oo yaani wuxuu afar ku bilaabo la oo Soomaal arkaysa marka aad ugu farxsanahay marka arkaan qaastan ay ku farxsan cuntada asiinaysid marka waxaan rabnaa inaan ka gaarsiino dawladaha adduunka joogo fikradaha ay ka qabaan in Soomaaliya inta dawladda gaaja in wax khayr qabin ba in hay'adaha caawiyaan kale aan rabaa fikrad ka gaarsiino oo sax ah in jiraan dad oo dhalinyaro isku tagtay oo wadankooda wax u qaban karaan oo diyaar u ah. maanta fikradaas waxay noqotay caalamka gaadhay xitaa khaarijka iyo daakhilka dadkan way bateen dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan kula dardaari lahaan kula talin lahaa marba bishan Ramadaan tahay in khayraadka ay badsadaan ay waxay ku caawin karaan caawiyaan. bisha Ramadaan ayaa kaga duwan bilaha kale acmaashu dadku ay qabtaan iyada oo dheer inay dadku istaageeraan in la caawiyo dadka tabaalaysan waxay ka dhigan tahay in la helo bulsho isku tiirsan waxaana tusaale wanaagsan ku ah dhalinyarada iskood isku xilqaamay ee afurku gaadh. Yaasiin Xuseen Ismaaciil Goobjoog TV Muqdisho.
وتهي warbixintaasi dhalinyarada mashruucaasi khayriga ah ka fulisay magaalada Muqdisho waxa ay kaga qayb qaadanayeen acmaasha khayriga ah iyo waliba afurinta bisha barakeysan ee Ramadaan dadka Soomaali ee gobolka uga dhaco wadooyinka hareerahooda Yaasiin ayaa inoogu diyaariyay warka goobjoog iminkana waa akhbaraadkii kale ee sportiska gaar ahaan kubadda cagta waxa aad loo hadalhayay eedayn ku soo baxday xiddiga kubadda cagta la yiraahdo BZK oo la sheegay isaga iyo aabihii in loo haystay la baxsashada canshuuraha gabagabo fiican ay ku soo dhamaatay dacwadii ka dhanka ahayd BZ iyo aabihii oo la xiriirtay la fakashada canshuurta dalkaasi Spain xiriiryaha guud ee dalka Spain ayaa sheegay in si wanaagsan ay ku soo dhamaatay dacwadaasi garsoorka Spain ay soo gudbiyeen go'aankoodii iyadoo BZ aabihii la ganaaxay waxaa lagu dhameeyay in ganax maaliyadeed uu bixiyo xiddigan caanka ku ah kubadda cagta ee BZ iyo aabihii oo qudhiisa eedeyntaasi ay qayb u ka lahaa ganax dhan 250,000 oo pound ayaa lagu xukumay inuu bixiyo ciyaaryahanka si uga badbaado 21 bilood oo xabsi ah ciyaaryahanka oo aad ciyaartiisa loo jeclaystay taageerayaal fara badan leh iyo waxa jira walaac ay ka muujinayeen taageerayaashiisa arinta dhowr jeerna waxa loo dhigay dib dacwadaasi ilaa baanta go'aankaasi laga gaaray wararka ciyaaraha dhanka kale Salah la parata è in gol 4-0 84esimo minuto waa maxamed saalax ciyaaryahanka misriga ah oo dadaal fara badan uu sameeyay kadib iminka ku wareegaya Liverpool waxyar oo kadib markii baraha bulshada lagu shaaciyay heshiiskaasi inuu ku wareegayo Liverpool ayaa hambaliyadu caada tagtay taageerayaasha kooxdaasi iyo waliba kan taageeraha ciyaaryahanka maxamed misri ay aad u hadalhayeen waxyar waa 10 bilood waa 10 waxyaabood ayaa isbedel ku dhici doona kadib marka uu ka soo booqdo ciyaaryahankani garoonka kubadda cagta kooxda Liverpool halgankiisa waxa uu ka soo bilaabay Basel oo ay ku qaadatay 2 milyan oo lacagta yuuraha ah waxa uu xigtay kooxda Chelsea waxayna ku qaateen xil ciyaareedkii la soo dhaafay 10 milyan oo lacagta yuuraha ah Roma waqti la soo qaatay iyana waxa ay kula wareegeen 18 milyan ee lacagta yuuraha ah qiimaha hadda lagu qaatay ciyaaryahankani reer Masaari 45 milyan oo dollarka Mareykanka ah 10 shay ayaa la sheegay ama waxyaabood in iska bedeli doonaan garoonka kubadda cagta Liverpool dalka Masar uu ka soo jeedo xiddigan iyo waliba dabeecadda taageerayaasha kooxdan waxa la yiri qodobka koowaad Maxamed Salah dadka reer Masar waxa ay sameyn doonaan akoonadoodii baraha bulshada hadda waxay u wareejinayaan Liverpool oo waxay ka guurayaan Roma Liverpool waxa ay ku baahin doontaa ciyaarahan si dhameystiran baraha bulshada iyo waliba maqaaxiyada aad looga daawan doonaa isbedelka ayna qayb ka tahay taageerayaasha kooxdan waxa ay heli doonaan malaayiinta taageero iyagu la mid ah ee taageera Liverpool ee dalka Masar dadka Masar waxay bilaabi doonaan inay ku kaftamaan Jurgen Klopp oo ahaa maamulaha dhanka farsamada ama kooxdan baraha bulshada ay kula kaftami doonaan oo waxay dhihi doonaan ereygii caan baxay ee ahaa Coutinho go kamin Salah page-ka rasmiga ah ee kooxdan Liverpool baraha bulshada ay ku leedahay waxa buuxin doona afka Carabiga oo taageerayaasha Masar oo wiilkan taageera ay ku soo bandhigi doonaan sheekooyinka ugu xiisaha badan kubadda cagta baraha ka faallooda wararka ciyaaraha ay halka sare uga qoran yihiin labadaasi sheeko iminkana waxaan eegaynaa akhbaaraadkii dibadda oo iyana qodobada ugu weyn ay ka mid yihiin mas-uuliyiin Mareykan ah ayaa waxay sheegeen in Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay gantaal casri ah ka oo sii kordhinaya ismariwaaga u dhaxeeya dowladaha reer galbeedka iyo waliba maamulka Pyongyang tijaabadan cusub ayaa lagu tilmaamay inay qayb ka tahay horumarinta gantaalada Kuuriyada Waqooyi ee ku doonaysa inay ku gaarsiiso Mareykanka waxna sii kordhaya khilaafka u dhaxeeya Mareykanka iyo dowladaha Kuuriyada Waqooyi taas oo salka ku haysa barnaamijka nuclearka ay sii horumarinayso Pyongyang
qaramada midoobe iyo xulafada maraykanka ayaa sii xoojinaya cambaaraynta u jeedinayaan kuuriyada waqooyi si cadaadis loogu saaro in ay joojiso tijaabada gantaaladan balaastikada ay ku jiraan. wakaaladaha wararka sirdoonka maraykanka ayaa ka digay suurtagalnimada ah in Pyongyang ay ku guulaysato ugu dambeyntii xaqiijinta hadafkeeda ah inay horumariso gantaalada. mas-uuliyiin maraykan ah oo magacyadooda aan la shaacin ayaa warar ay siiyeen wakaaladaha wararka reer galbeedka waxay ku sheegeen in gantaalada hadda ay farsameynayso kuuriyada waqooyi ay la mid yihiin kuwa balaastikada ah ee qaarad isaga gudba. khubarada ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in horumarka kuuriyada waqooyi ay sameynayso aan awood loo lahayn in laga hor istaago maadaama farsamooyin casri ah kuuriyada waqooyi ay u adeegsanayso barnaamijkeeda nuclearka. ugu dambeyntiina dowladaha xayiraadda kusoo ragaya qatar oo ay ku eedeeyeen inay taageerto kooxaha loogu yeero argagixisada ayaa waxa ay soo bandhigeen dhowr iyo 10 qodob oo ay kaga dalbanayaan qatar inay dhaqan geliso. waxaa ugu horeeya in albaabada la isugu dhufto janalka caanka ah ee wararka tabiya ee aljaziira. dowladaha sacuudi arabiya, masar, imaaraadka iyo baxrayn ayaa ka dalbanaya dowladaha khaliijka carabta inay albaabada isugu dhuftaan tv-ga aljaziira oo saameyn xoogan ku leh siyaasadda khaliijka. dowladahan ayaa sidoo kale ka dalbaday qatar in ay xiriirka u jarto iiraan albaabadan la isugu dhufto saldhigga militari ee turkiga uu ku leeyahay magaalada dooxa. waxaa sidoo kale laga dalbaday in ay go-aan ka gaarto soo dhoweynta ay u sameynaysa shakhsiyaad dowladaha khaliijka ay ku tilmaameen inay yihiin argagixiso. inkastoo jawaab degdeg ah aysan ka bixin qatar dalabkan ay wadaan waa dowladaha khaliijka ayaa haddana wasiirka arrimaha dibadda qatar waxa uu beeniyay dhammaan eedeymaha loo soo jeediyey ee ah in qatar ay taageerto argagixisada. go'doominta ay ku sameeyeen dowladaha carabta qatar ayaa saameyn diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale ku yeelatay xukuumadda dooxa. qodobkaasi ayaa daawadayaal ugu dambeeyey warkii goobjoog TV oo xarunta dhexe ee telefishinka aan idinkaga soo gudbinaynay magaalada muqdisho. aad baad ugu mahadsantihiin wararkaasi faahfaahsan iyo kuwo kale waxaad ka heli kartaan barta internetkeenna ku leenahay goobjoog.com. aad baad ugu mahadsantihiin daawashada warkayaga.